warar soo baxaya ayaa sheegaya in Israa'iil ay qorsheynayso in saldhig military ay ka samaysto Somaliland gaar ahaan xeebta Berbera halkaas oo ay Israa'iil doonayso inay ka weerarto Xuutiyiinta waddanka Yemen oo ka mid ah kooxaha ay Iiraan sida weyn u taageerto. Dagaal ka socda bariga dhexe maalintii 13aad ayaana laga cabsi qabaa in Soomaaliya uu soo gaaro maalmaha soo socda. Jariirada Bloomberg oo xiganaysa saraakiil ciidan oo ka kala tirsan maamulka Israa'iil iyo Somaliland ayaa daabacday warbixin sheegaysa in Israa'iil ay doonayso in saldhig military ay ka samaysto Somaliland si halkaasi ay uga weerarto Xuutiyiinta waddanka Yemen. Warka ay daabacday jariirada Bloomberg ayaa u dhignaa sida tan: iyadoo oo dagaalka Iiraan uu sii socdo, Israa'iil waxay si qarsoodi ah u qorsheynaysaa in saldhig military ay ka samaysto Badda Cas si ay uga weerarto mid ka mid ah kooxaha sida weyn u taageersan Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, taas oo ah kooxda Xuutiyiinta Yemen oo weli awood buuxda ku shaqeysa. Arrintan waxaa fududeeyay Somaliland oo ah dhul ka go'ay Soomaaliya kuna yaala gacanka Cadmeed, taas oo maamulka Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu uu aqoonsaday bishii December sanadkii tagay ee 2025. Tallaabadaas waxay Israa'iil siisay joogitaankeedii ugu horreeyay ee diblomaasiyadeed ee ku wajahan Yemen. Hadda Israa'iil waxay qorsheynaysaa inay sii xoojiso iskaashi amni oo istiraatiiji ah kaas oo laga yaabo inuu ku lug yeesho dhismaha saldhig military oo laga sameeyo xeebaha Somaliland. Si kastaba ha ahaatee, saldhigga military ay Israa'iil doonayso inay ka samaysto Somaliland ayaa ah mid Soomaaliya u soo jiidi karta khatar hor leh iyada oo gantaalada ridada dheer ay isku adeegsanayaan Israa'iil iyo Xuutiyiinta Yemen ay si weyn u saameyn doonto shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka maamulka Somaliland.